السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن فيصل يا دكتور طيب وهبين وي مع السنين اللي ما انتهيت هبين ثلاثة جلسوي وحنا كسب بحنا هوسبيتالك ليف هوسبيتال كان في نوتوش حنا كسب بحنا ليف هوسبيتال هويا نحن نوصل نسود دعي إن شاء الله تعالى وتوانك برمضان الله عافي كورونا كدعي الله المستعان أكسجين كذي بخطر قلي خلاص ودعي مرمر كدم كسرنا نسا إن شاء الله إلهي وحنكبر إنه عافية يضي أنت مسلمين ومتقنا بانكاس عذور كاس الله حنوصل إن رنتي وواحد مهم وحنا هذا قد كسر قلني أربعين كهذا الله دكتور سولو بسم الله الرحمن الرحيم فيصل أبا ما سنتهاي runtii waxaa dareemi karaa nimcada oksijiinka qofka ay ka maqan tahay ayaa aad u dareemi karaa hadda waxaan ka nimid ICU-ga oo ay xafsa Allah caafiyo iyo dhammaan muslimiinta inta xanuunsan ee ICU-ga ku jira dad badan baa ku jira ICU-ga qiyaasta markaa yani waxaa laga dareemi karaa qofka ICU-ga hadda مثلا hooyo kale ay dadka ku jira oo corona ama haya waxyaalaha ay ugu jiraan inta badan waxaa weeye oxygen bay u baahan yihiin inta kale caafimaadkooda maasha Allah weeye laakiin oxygen bay u baahan yihiin oxygenka marka anaga maalin kasta iyo daqiiqad kasta bilaash baan ku helnaa haddana isbitaalka lacag aad u badan $1,000 bay habeen kasta bardhnay waxa kaliya ugu jirtana ICU-ga ay tahay marka anagana waxaa weeye every minute iyo daqiiqada yar qofka kama maqnaan karo oxygen hadduu daqiiqada yar ka maqnaato qofka waxa weeye waa uu geeriyoonaya oo maskaxdii ma shaqayn karto jirka dhanna wacnaha oksijiinka uu u baahan yahay meesha ilaahay ka yidhi in tacuddu nicmatallahi laa tuxsuuha yani waa nicmooyinkaan haysano aynan ilaahay ugu shukriyan ama ilaahay ugu xamdi naqaynin mar kastaba muhiim ay tahay waxaad dareemaysaa markii aad isbitaal soo booqato dareemaysaa caafimaadka aad haysato iyo wanaagga ilaahay ku siiyey alxamdulilah alladii caafaana mima ibtalaahum وفضلنا كثير من الناس يعني واحد مهمة آدي قفك ما من اسبيتال بوقته أما قبري بوقته حدري مسا يعني نعمة إلهي أكسي قبري ما هذا بوقته نفط ينرش وحيتها أختي هذا هيسته يسوي فعيد ستة اسبيتالنا مركز بوقته سيدا قال عافمات لحد الحديث يقول ما يستري عقلي مسكحلي النفط هذا أي سيوغ سؤال ما أنك تقول ولا بنا إنه حدري مسا مركز قشطة دونت تنبل متقارن oksijiinka ayay la siinaya oksijiinka la siinay oo la suuxiyay oo waliba qaarkood xanuun ay dareemayso maamada kale dadka la jiifo kale markii la gelinayay ee aad xanuun u dareemaan waxa keenaya marka yani adiga maalin kasta bal ka fikiro daqiiqad kasta oo maskaxdaada iyo xubnaha jirka baahida ay u qabaan mesela daqiiqado kooban ay maskaxdaada si noolaan kartaa oksijiin la'aan ku noolaan kartaa haddii daqiiqadahaas ay iska sii bataan qofka uu dhimanaya marka dadka isbitaalka ku jira ama ICU ku jira ee oksijiin kaliya ugu jira lacag fara badanna ku bixinaya yani waxay dareemayaan nimcada sidaasoo kale xataa markii la siinayo oksijiinka dhibaato lagu siiyaa aad bay xanuun u dareentay yani nicmada ilaahay na siiyey hawada waxaan ku helnaa tartiib ah oo raaxa waa ku dareentay waa qaadanayna si mataqaana aan dhib ku jirin culays ku jirin qofkan $1,000 habeenka ku bixinayo oksijiinka in la siiyo maamada hooyo waxay tiri malakul mowt inuu halkan taagan yahay xanuunka sakaraatul mowtka baad u malaynaysaa oksijiinka lagu siinayo awgeed yani fiiri uu u baahan yahay qofkii in la siiyo waa iibsatay xanuun baa lagugu siiyey rafaad baad ka martay يعني إلهنا نعمة نوما حسابية نوما متقنا نوما وحي الحمد لله على كل حال مركز هذا الموضوع ماشي وصل له حوينا مركز تكون شكرنا نمعاس إلهي ونسيه وحسسنا إنه أو وليبا نمعين كمركز لا تيرنا يمد والبا مد ودرا ويقدر أنت مد كسميد كلا وقدرين مركز نمعاذ أن عور من حسسنا وحوي نفت أم نفسنا يسوع إلهي بكسيه يعني ضد أولي باتيسن أو باهن si caadi ah dabiicigoodii ka baxay oo ICU ugu jira ilaahay ugu shukranaq ilaahay ugu mahadnaq markasta xasuusnowna inay jirto marka waxaan idin kula talinayaa inay isbitaalada booqataan oo aad eegtaan dadka xanuunsan si aad u xasuusataan
nimcooyinka ilaahay idin siiyey. sidoo kale u duceeya walaalaha xanuunsan tobanka dambe ramadaan baa lagu jiraa hooyadan usoo duceeyey inta muslin oo xanuunsan usoo duceeya ducada uun baanu dadka u awoodnaa ducadaas insha allahu tacaala aan ugu dadaalno waynu salaamayna assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.